الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله daawayaashada sharafta badan reer Caldaas iyo reer Wajeerba waxaan u sheegayaa in ay ogaayeen intii arintii loolanka siyaasadeed ka dhacday doorashadii aan soo dhaafnay ka dhacday Caldaas inaan maxkamadda racfaanka geynay maxkamadda racfaankana ay go'aan soo saartay weegan soo dhaafnay taasoo ahayd in ay go'aan soo saareen in ay dhaheen waa ka dib dhacnay waqtigii appealku waa ka dib dhacnay taa awgeed in ay sharci ahaan ay keeskaas ay geli karin oo afka qalaad lagu dhahaa we have no jurisdiction to hear the appeal. Arrinta iyada ahayd go'aanka asaga ay ma ku qancin waayo qareenkayda iyo anigaba arrintii maan ku qancin waynala ahaan waysay waxaa dhacday inaan haddana racfaan kale ka qaadana on aan Supreme Court waad ogtihiin xaqan u leenahay qaynuunka Kenya ayaa qoraya handaa maxkamadda racfaanka wixii ka soo yeeray haddaan ku qanci waynay inaan racfaan kale ka qaadan karna tii ayadaheed waxaa dhacday inaan u gudbinaa Supreme Court-ka cabashadayna sidaas ogsantihiin maxkamaddan aan ku soconno waa rabitaanka shacab weynaha reer Caldaas wixii ka dhacay waad ogtihiin dhibaatada ka dhacday dilka ka dhacay boobka ka dhacay in qalabkii lagu coday kulli la gubay maxkamadda sare iyo tii racfaankana kolley nin kasta waa ogyahay wax ka dhacay annaka oo ka shidaal qaadanayna shacabkeenna iyo rabitaankooda waxaa noo muuqatay inaan arrintan aan ka herin ilaa Supreme-ka aan ka tagno waana ballan aan hore u qaadnay inaan xaqdaradan aan ka fadhiisanayno waxaan aaminsannahay in xaqayna aan heli doono shacabkii codeey oo dhibaatada ay ka soo gaartay oo codkooda la boobay inay xaqooda ay heli doonaan aan ilaahay ka baryaynaa haddaad kacdaan ood Caldaas tagtaan oo dadka waraysataan kolley waxaa laga yaabaa inaad u malaysaan arrintan inay Axmed Boorey kilax qusaysa arrintan waa aragteen mar badan dadkii cabanaya fareesyo bixinaya oo leh guushii ay rabeen inay waayeen oo codkooda la boobay marka annaka hawsha noo taalla Supreme-ka waa un su-aasho meel codbixin ay ka dhacday laysku qabsaday oo maxkamad la keenay qalabkii lagu codeeyey sanduuqadii iyo wixii kulli la gubay siday u kala saari karaan siday maxkamadda ay u dhihi kartaa guusha ninka hadda haysa ay raacday wixii lagu kala saari lahay kulli ma yeelaan meesha marka annaka arrintaatu aan ka fadhiisanayna maaha hadday noqotay inay codkii la boobay dadkii la rabsheeya oo la laaya haddana wixii lagu coday kulli la gubo maxkamadihina sidaas aad aragteen ay ku dhawaaqeen midaad mid noo cuntunta maaha waa mid annaka xaqdarradaas to aan u jiifanayna maaha waana dadaalaynaa waana aragteen in aan maxkamadda ugu sarreysay oo Supreme Court-ka aan tagnay aan adduunka iyo reer Wajeer Kenya kulli aan u sheegaynaa in arrintan annaka aan diidanahay xaqdarradaas xaqana aan rabno in dadkii codkoodii
baxsadeen inay xaqooda loo soo celiyo reer Ceeldhaas waxaan u baaqayaa in ay nabadda ku dadaalaan midnimada ay muujiyaan arrintan maxkamadan geynay taa waxaa waaye sidii qaynuunkeena ad qoraaya oo sharciyaan ah ayaan annaka rabnaa arrintan in lagu xaliyo rabsho kale ma wadna dhib kale ma wadna ninaan hadda maanta aan ka hor taagannahay inaa services bixiya hataa ma jirta markaan shacabku waxaan u baaqayaa insha allah sidiin aan in ballan qaaday inayn arrintan aan ka hari doonin oo ilaa meesha ugu dambaysa aan la tiigsanayno waxaana in xaqiijinayaa inay arrintii aan supreme geynay oon haddana maxkamadda u sarreysa aan ka sugaynaa go-aanka kama dambeynta ah markaa kabacdi aan haddana tillaabada xigta aan ogaan doonaa insha allah markaan insha allah guusha waa inoo dambeysaa xaqdaradii linka galay codkiina la boobay annakana tu aan ka jifanayn mala insha allah waan guulna waa heli doonaa insha allah